waalid marxaladda 1 sano ilaa 7 sano ilmaha markay ku jiraan xadhkaha kabahooda ma xidhan karaan, laakiin adiga waalidka way ku fiirsanayaan marxaladda iyada ah ee aanay xadhkaha kabahooda xidhan karin. waxay ku jiraan hawlkan. hawshaasi waa maxay? Not only are they learning from you, but they are observing. ma aha keliya inay adiga wax kaa baranayaan oo waxaad u sheegta ay baranayaan keliya maaha, laakiin marxaladda waxay ku jiraan absorption. sida isbuunyada marka la geliyo biyaha ay u liqdo biyaha ayaa caruurtaasi waxay u liqayaan oo ku duxaya habdhaqankaaga. saad waalidkaa ula hadlayso, saad dadka kale ula hadlayso, saad u qaylinayso, khalad markuu dhaco saad uga falcelinayso iyo waxa la midka. marxaladda iyada ah marka aad hagsiiso way ku sawirmaysaa, markaad ku qayliso way ku sawirmaysaa. waxaa dhismaya identitygooda. khubrada ay ka mid yihiin Bruce Lipton waa dadka looga dambeeyo culumta lira developmental neuroscience, waxyaabaha ku saabsan maskaxda, shaqaynteeda, garashada iyo dhammaan howlaha jidhka bini'aadamka uu qabto. waxay leeyihiin ilmuhu 7 sano markuu gaadho markiiba waxaa jihaysmay meeshuu aadi lahaa, dabeecaduu yeelan lahaa, adduunka meeshuu ka raaci lahaa, dhinac buu u batay. waxay dhahaan marka qaabka 7 sano markay u dhammaato uu u jihaysma ilmaha ayaa 95% xukumi doonta markuu weynaado dabeecadihiisa. waa ilmihii 7 sano hadda u buuxsantay, dabeecaddaa uu yeeshay ayaa 95% siduu Bruce Lipton qabo waxay xukumi doontaa oo sheebgarayn doontaa ilmahan markay weynaadaan dhaqanka ay la soo bixi doonaan. 7 sano ilmaha markuu gaadho waa inuu noqdo ilmo aad la ciyaartay, ilmo aad isku talaalanteen, ilmo uu idaga dhexeeyo attachment wax la yidhaah, si meel fiican uu ugu jihaysmo. ilaahay awlaadana xifdiyo. wasalaamu calaykum.